waxaa goordhoweyd soo baxday jawaabtii laga sugayay golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ah isbahaysiga ugu weyn ay mucaaradku ku midaysan yihiin kadib markii labadii bishan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ugu baaqay inay ka soo qayb galaan kulan ay la qaataan dowladda federaalka si go'aan looga gaaro ama xal looga gaaro khilaafka ka taagan doorashooyinka iyo arrimaha kale ee masiiriga ee dalka. goordhoweyd war ka soo baxay golaha mustaqbalka Soomaaliya waxa uu si taxadar iyo mas'uuliyad leh u soo dhaweynayaa baa lagu yiri casuumaadda madaxweynaha ee ku aadan wadahadalka la qorsheeyay 10 bisha May. golahu wuxuu cadeynayaa baa la yiri in sidii hore uu niyad sami iyo daacadnimo uga qayb qaatay wadahadalada balse madaxweynuhu uu barbar waday tallaabooyin uu si sharci darro ah ugu bedelayay dastuurka dalka. waxay kaloo sheegeen inay taasi dheer tahay in ay jadwalka doorashada oo hal dhinac ah uu madaxweynuhu soo saaray. sidoo kale waxay ka hadleen arrinta barakicinta dadweynaha oo ay ku sheegeen in madaxweynuhu uu wali sii wado. waxay sheegeen inay diyaar u yihiin wadahadalada isla markaana ay ka go'an tahay in ay ka qayb galaan wadahadal niyad sami ah iyagoo ku xiray laba shardi oo ay ku sheegeen in haddii la fuliyo ay wadahadaladaasi ka qayb gali doonaan. waxaa ka mid ah in uu muujiyo daacadnimo dhab ah oo ku aadan wadahadalka joojiyana tallaabooyinka doorasho ee halka dhinaca ee natiijadeeda la sii og yahay balse qof iyo codka ku magacaaban waa sida ay warka u dhigeen. sidoo kale in la helo hanaan dhexdhexaadin madax bannaan oo la isku raacsan yahay. golahu wuxuu si cad u adkeynayaa bay yiraahdeen in heshiis siyaasadeed oo ku saabsan doorashooyinka la gaaro ka hor 15 May 2026 oo ka eg muddo xileedka madaxweynaha. haddii taasi ay dhici weyso golahu isagoo kaashanaya shacabka waxa uu qaadi doonaa bay yiraahdeen tallaabooyin mas'uuliyadeed oo lagu badbaadinayo midnimada dalka iyo wadajirka dalka. waxaa jiray cadaadis ka imaanaya wakiilada beesha caalamka oo dhinacyada ugu baaqayay in ay xal ka gaaraan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka iyo dastuurka. dowladdu waxay ku adkaysanaysaa in doorasho qof iyo cod ah waddanka laga qaban doono bilaha soo socda waxaana ugu soo horeyn doonta Koonfur Galbeed waxaana xigi doona Hirshabelle iyo Galmudug. waxayna sheegeen in markaa dabadeed la qaban doono doorasho toos ah golayaasha federaalka sida baarlamaanka iyo madaxtooyada. laakiin mucaaradku waxay leeyihiin doorashadaasi hanaanka loo maray iyo dastuurka loo marayaba ma aha mid saxa. sidaa daraaddeedna waa in heshiis laga gaaro. dabcan cadaadiska wakiilada beesha caalamka ka imaanaya ayaa dhinacyada isu soo dhaweynaya. bulshada rayidka ayaa sidaas oo kale iyana wada dadaallo ay doonayaan in dhinacyadu xal uga gaaraan khilaafka.